wuxuu soo noqday nabadoon soo dhiraandhiriyey salka nabadeed ee ku fadhida Somaliland iyo diblomaasi xarkihiisa siyaasadeed ay ka caraysiyeen filla Soomaaliya xiir xildhibaan iyo xariiqan xuquuqdiisa siyaasi ku raadinaya ahad qarameedkii uu gacantiisa ku qoray 30 sano ka hor 76 jirkani waxa uu si cad taageero uga helay hogaamiyaha ugu sarreeya Somaliland anu waxaan dhisayaa Yaasiin professor iyo badiba bulshada rayidka ah isagoo oo mar kale u tartamaya jagada gudoomiyaha golaha wakiilada 32 sano ka hor 1999 iyo 2 sano kadib 2021 Faratoon waxa uu naawulayaa fursad siyaasadeed oo wali aanu rajadeeda dhigin isagoo oo gacan ku raadinaya saamigiisa siyaasadeed gacan kalena ku sita waaya aragnimadiisa Xaamud iyo Xiir yaa mudan gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland ee 2023 xogsidahan kooban ayaynu ku eegaynaa Faratoon 1947 ayuu ku dhashay magaalada Laascaanood Erigaaba iyo Muqdisho ayaa isu tabiyay waxbarashadiisii hoose dhexe iyo sare ilaa uu bare ka noqday jaamacaddii uu ka baxay ee la foole 1974 waayihiisii waxbarashada masterta iyo Manchester kadib waxa uu kacaanka kala shaqeeyay tacliinta dadka waaweyn ilaa ay kala shaqeeyeen horaantii 80-maadkii markii ay Somaliland buuxday wuxuuna firradkii galay waddanka Qatar shantii madaxweyne ee Somaliland soo maray dhammaantood waxay magaca Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon ku soo saareen digriitooyin ay xilal ugu magacaabeen 1999 waqtigii madaxweyne Tuur waxa uu noqday gudoomiyihii ugu horeeyay ee gobolka Sool wuxuu daraf ka hayay darmihii nabadeed ee la dhigay Burco Sheekh iyo Boorama Yaasiin Xaaji Maxamuud gudoomiyaha gobolka Sool wuxuuna ka mid yahay xubnaha ka nool 7 xubnood ee qortay axdi qarameedkii lagu qoray shirkaasi waxa uu ka mid noqday xildhibaanadii 1997 wax ka qoray dastuurka Somaliland isagoo markaasi dib u xambaaray si ay shuruucdaasi uga hirgasho gobolka Sool ee uu ka soo jeedo xukuumaddii madaxweyne Cigaal waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka wuxuuna adeegga caafimaad ee bulshada maamulayay xilli ay adkeed in la helo kaabsul saxa madaxweyne Daahir Riyaale waxa uu kala shaqeeyay dib u dejinta dadka iyo buddiga dimuqraadiyadda halka madaxweyne Silaanya uu la caymidiyay inuu nabad ka keeno gobolka Sool oo laba beelood oo walaal ah ku noqdeen col xiira ah wuxuuna ku guuleystay inay noqdaan gacal wada dega isagoo ah wasiirka arrimaha gudaha Xiir waxa si weyn loo bartay markii uu dhaqaajiyay siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland isagoo ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda madaxweyne Biixi xarkaha diblomaasiyadeed ee uu ka xidhay Kenya waxa ay sababeen inay isqabtaan Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta hogaamiyaashii hore ee Kenya iyo Soomaaliya booqashadii Guinea Conakry waxay ahayd mid curad ah Taiwan oo qadiyad ahaan la mid ah Somaliland xiriirkeeda waxa ay isu tabiyay dunida oo dhan wuxuuna noqday xiriir saaxiibtinimo oo midho dhalay halka diblomaasiyiintuna ay sheegaan in xiriirka Taiwan uu sabab u ahaa xiriirka Mareykanka iyo booqashadii madaxweyne Biixi Taiwan and the self-declared state of Somaliland Xiir xukuumadda kulmiye tan iyo 2010 saddex jeer ayuu wasiir ka noqday iyo maruu xildhibaan ahaan ugu soo baxay xisbiga gobolka Sool laakiin intaasiba uma jarin inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada doorashadii 2021 Faratoon ayaa 2 sano kadib mar kale darka taagan iyadoo xiisadda siyaasadeed ay sidii hore ka duwan tahay gobolka Sool ee uu ka soo jeedana ay colaadi ka holacayso waa xildhibaanka ugu da'da weyn xildhibaanada golaha wakiilada wuxuu sanadkan madaxa ka jaraya gugii 76aad 32 sano oo ka mid ah cimrigiisa waxa uu ka shaqaynayay qadiyadda Somaliland taas oo muujinaysa waaya aragnimadiisa siyaasadeed xiisadda Laascaanood oo 2 sano ka hor aan jirin aragti ahaan Faratoon waxa uu qabaa in Laascaanood iyo Somaliland aanay kala go'i karin waxayna siyaasiyiinta iyo xildhibaanada badankood ay qabaan in arrintaasi ay mudnaanteeda leedahay Faratoon lagu tixgeliyay siyaasaddiisa salka leh doorashadii shirgudoonkii tan ka horeysay xildhibaanada baarlamaanku waxa ay doorteen Cabdirasaaq Khaliif oo isku deegaan ka soo jeedaan kaasi oo markii dambe ka soo horjeestay qadiyadda Somaliland Faratoon waxa uu hadda dhexda ugu jiraa xukuumadda oo taageero uu ka helayo iyo xubno mucaarid ah oo la aragti ah intaasi oo isu tagay waxa ay ku xujaysan yihiin inaanu mar labaad lugta la waayin kursiga shirgudoonka golaha wakiilada